بسم الله الرحمن الرحيم waxaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogan u dirayaa hambaliye iyo bogaadin ku aadan 1 Luulyo 2020 1 Luulyo waa maalintii ay xaroobeen gobolada koonfureed ee Soomaaliyeed sidoo kale waa maalintii ay isu yimaadeen gobolada waqooyi kuwa koonfureed waa maalin qiimo iyo qaayo weyn ku leh taariikhda ummadda Soomaaliyeed qof walba oo Soomaaliya meel walba ay joogto maalintan xorriyadda ee taariikhda ku mudan ummadda Soomaaliyeed magaceeda waxaan leeyahay meel walba aad joogtaan hambaliyo 1 Luulyo sanadkan waxay ku soo aadaysaa annagoo 60 jirsanay sidaas daraadeed 60 sano xorriyadda kadib waa inaan isweydiinaa 60 sano kadib maxaa inoo qabsoomay 60 sano kadib maxaan rabnaa inaan qabanno 60 sano kadib sidee baan rabnaa inaan gacmaha isu qabsano 60 sano kadib qorshe noocee ah ayaan rabnaa inaan u sameeyno ummadda Soomaaliyeed si jiilka naga dambeeya aan ugu dhiibno qarannimo ka xoogan tan maanta aan ku jirno si taasay u dhacdo qof walba oo Soomaaliyeed waa inuu qayb ka noqdo qarannimada waa inaan isu nimaadnaa dalkeena u jihaynaa dhinaca horumarka iyo mustaqbalka ifaaya mar labaad shacabka Soomaaliyeed meel walba oo joogtiin waxaan idin leeyahay hambaliyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.